buugga dhammaadka adduunka muxuu ka hadlayaa? runtii waa buug mawduuciisa oo kale Soomaali aysan waxba uga qorin. buuggan waxaa qoray aniga oo magacaygu yahay Maxamed Cabdi Yuusuf. buuggan gebi ahaantiisa waxau ka hadlayaa wax dhici doona, kuwaas oo isugu jira kuwa sugan oo nabigeenu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam iyo kuwa saadaal ah. kuwa saadaasha ah waxaa ka mid ah dagaal saddexaad dunida ma ka dhici karaa, isaga oo buuggu si faahfaahsan u falanqayn doono. sidoo kale waxau ka hadlayaa xadaaradan quruxda badan ee maanta aan ku jirno ma soo dhammaan kartaa, oo ma lagu laaban karaa casrigii fardaha iyo geela la isticmaali jiray. sidoo kale buugga waxau ka hadlayaa hoogga iyo halaagga ka dhalan kara haddii la isticmaalo kumanaanka kun ee madax ee nukliyeerka ah ee maanta dunida yaala. sidoo kale buugga waxau ka hadlayaa waxyaalo dhici doona, kuwaas oo nabigu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam. waxaa ka mid ah dagaal weyn ay muslimiinta iyo reer Yurub isaga hor imaan doonaan. dagaalkaas nabiga si faahfaahsan inooga sheekeeyey. cutub dhan oo buugga dhammaadka adduunka ku qoran ayaa dagaalkaas ka hadlaya. nabigu sallallahu calayhi wasallam marka uu dagaalkaas inooga sheekeynayay magaca Yurub ma dhahaayo, ileen magaca Yurub dhowaan baa la bixiyey. waagii hore waxaa loogu yeeri jiray Ruum. nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yiraahday qiyaamuhu dhici maayo ilaa ay dagaal isaga hor yimaadaan muslimiinta iyo reer Ruum haddii aad mar maqashidna waa reer Yurub. axaadiistu waxay sheegayaan inta aysan dagaalkaa galin marka hore muslimiinta iyo reer Ruum iyaga oo heshiis ah oo saaxiibo ah ayay qolo kale ku duulayaan. nebiguna inooma sheegin qolada ay ku duulayaan kuwa ay yihiin, laakiin nebigu waxa uu xusay muslimiinta iyo reer Ruum iyagoo heshiis ah in ay qolo ku duuli doonaan. walow culummada qaar ay qiyaasaan, qaar waxay dhahaan qolada waa Yuhuudda, qaar kalena waxay dhahaan qoladaasi waa Shiinaha, laakiin xaqiiqda dhabta Ilaahay baa og. muslimiinta iyo reer Yurub markii ay qolada ku duulaan waa ay ka guulaysan doonaan, hanti badan iyo qaniimo badan bay ka heli doonaan. intaa kadib muslimiinta iyo reer Yurub iyaga dhexdooda iskhilaafaya, dagaal baa ka dhexdhici doona. dagaalkaas waxaa lagu dili doonaa dhammaan muslimiintii la socotay reer Yurub. markii reer Yurub ay laayaan muslimiintii la socotay, intaa kadib waxay aadayaan ninkoodii ugu weynaa, waxay ku dhihi doonaan annaga carab kaaga filnaanay. muslimiintii adduunka kale ku noolaa ayaa xanaaqi doona maadaama reer Yurub ay dileen muslimiintii la socotay ee dagaalka la gashay. intaa kadib waxaa la isku diyaar garaynayaa dagaalkii weynaa ee dhex mari lahaa muslimiinta iyo reer Ruum, ama muslimiinta iyo kiristanka, ama si kale aan dhahne muslimiinta iyo reer Yurub. dagaalkaas kutubta Yuhuudda iyo kuwa kiristanka way ku qoran yihiin, laakiin kutubtaa waxba ugama baahnin. nebigaas si faahfaahsan inooga sheekeeyey. waxaa la sheegaa dagaalkaas inuu noqon doono kii ugu weynaa ee taariikhda soo mara, mid la midana dunida ma soo mari doono. waa dagaal dhiig aad iyo aad u badan ay ku daadan doonaan ilaa ciidda iyo dhiigga isdhex galaan. nebigu sallallahu calayhi wasallam waxau inoo sheegay in reer Ruum la xasuuqi doono, ilaa uu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam shimbirta soo korumarta meydkooda ur dartiis bay la soo dhici doontaa. dagaalkaas muslimiinta guulaysan doona. ogow haddee muslimiinta guulaystayna iyagana 3 meelood meel baa badbaadi doonta. waxaa la arki doonaa qabaa'ilo dhan in hal qof ama 2 qof ay ka haraan. taasi waxay kuu caddaynaysaa sida labada dhinac la isugu maran doono ama la isku baabi'in doono. dagaalkaas inta aan hadda idinkaga sheegay 100% xitaa ma dhama waxa buugga ku qoran, waayo buuggan aad ugu faahfaahiyey sida la isku bahaysanayo, sida loo diyaar garoobayo, codsiga reer Yurub ay dhiiban doonaan, weerarka koowaad, weerarka labaad, weerarka saddexaad iyo wixii la mid ah. xitaa waxau ka hadlayaa qaniimada ay muslimiinta soo furtaan in aysan ku farxi doonin. sababtu maxay tahay? dagaalkaas muuqaal ama 2 muuqaal iyo 3 kuma soo koobi karo. buugga ayuu aad ugu faahfaahsan yahay. marka uu dagaalkaasi dhammaado waa marka uu masiixu dajaal soo bixi doono, sida uu nabigu inoo sheegay sallallahu calayhi wasallam. walow marka hore shaydaanka muslimiinta been uu u sheegi doono, laakiin xilliyada waa xilliyada uu soo bixi doono masiixu dajaal. mahdiga, masiixu dajaal, nabi ciise, يأجوج مأجوج
waxaas oo dhan sida ay u kala horeeyaan ayuu buugga ka sheekaynayaa. sidoo kale buugga waxau ka hadlayaa ilaa maalinta ugu dambaysa ee qiyaamaha waxaa dhici doona, dadka uu ku dhacaayo, qaabku u dhacaayo iyo xaaladda xilligaa lagu jiro. buugga waxaa ku xusan xogo sugan iyo kuwo saadaal ah. kuwa sugan waa garanay oo runta ah oo nebigu inoo sheegay. haddaba kuwa saadaasha ah waa qiyaas aan anigu qiyaasay iyo waxyaalaha ay aqoon-yahanadu ka qoreen. dembi ma ahan in wax la saadaaliyo. kutub ay culimmadeennu qoreen baa jira qaybtood ay saadaal tahay. waxaa dembi ah in aad tiraahdo arrintaas sidaa iyo sidaa bay u dhacaysaa, adigoo iska dhigaya inaad cilmulqaybka og tahay. laakiin waxaa sidaa bay u dhici karaan inaad tiraahdo dembi ma ahan. qiyaastaada marna sax bay noqon kartaa, marna khalad bay noqon kartaa. ogow buuggan inta aan qoray islamarkiiba aan soo bandhigay ma ahan. culimo ayaa soo marsiiyey, aqoon-yahano ayaa soo marsiiyey, sidoo kale dadka af soomaaliga ku fiican ayaan soo marsiiyey. iska daa wax kale, 2 tafatir ayaan mariyey. dhowr bilood waa jeekin garaynayay. wixii khalad ah aan ku arkana waan ka saarayay. kollay bani aadan ba ahay, khaladaad waa i dhuuman karaa, laakiin buuggayga inuu nadiif yahay, khaladaadna uusan ku jirin baan aaminsanahay. wixii qadartu keento ma ogi, waayo bani aadan ba ahay. muddo sanad ah ayaan qoraya buuggaas. cilmi iyo aqoon aad u baaxad weyn buu xambaarsan yahay. midda kale buuggan waa buug aan soo koobay. bogagiisu aad uma badna. haddii aan badin lahaa ugu yaraan 400 ilaa 500 oo beej waa ka dhigi karay, laakiin waan soo koobay. nuxurkii iyo micnihii iyo macaankii baa ka buuxa. waa buug aad iyo aad u xiiso badan markaa akhrinaysid. sideedaba buugaagta markaa akhrinaysid waa 2. mid waxaa leedahay ilaahu yaa iga dhammeeya, muu dhammaado oo bogaga badan baa dhibsanaysaa. midna adoo jeclaysanaya buu kaa dhammaanayaa. haddaba buuggan dhammaadka adduunka waa kan dambe. mana ahan buug aad akhriskiisa ku caajisaysid, waa mid aad ku raaxaysanaysid. ma ahan inaan buugga macaanaynayo oo aan ku ammaanayo. haddeer muddo bil ah ayuu suuqa ku jiraa. in badan baa la iibsaday. dhallinyaro iibsatay ayaa ila soo xiriirtay maadaama uu instagramkayga buugga ku qoran yahay. sababta aan ugu qorayna waxa weeye qofka markii uu buugga akhriyo fikirkiisa inuu ila wadaago iyo wixii talo ah uu igu darsan lahaa. dhallinyarada buugga akhriday ee ila soo xiriirtay dhammaantood waxay ka sinaayeen hal eray, kaasoo ah in buugga bogga koowaad ilaa bogga ugu dambeeya aan layska celin karin, oo uu yahay mid aad iyo aad u xiiso badan. waxay ii sheegeen in macluumaad iyo aqoon badan ay ka faa'iideen, laakiin waxaa canaan igu noqotay in aanan buugga badin. taasina waxaan ugu jawaabayaa, haddii buugga 300 iyo 400 oo bog aan ka dhigi lahaa, macaanka iyo xiisaha uu maanta leeyahay ma lahaan lahayn. sababtoo ah aniga qoraa kaliya ma ihi, akhrista buugaagta akhrista baan ahay. wax badanna waan fahmi karaa. buuggayga waxa aad kala kulantid waad ila soo xiriiri doontaa insha allah. waxaanan hubaa 100% in aad ii mahad celin doontid, macluumaad badanna aad ka faa'iidi doontid. sidaan horey kuugu soo sheegay, magacaygu waa Maxamed Cabdi Yuusuf. waxaan ahay mulkiilaha kanaalka Xogbaahiye iyo beejka Xogbaahiye. haddaad buugga u baahan tahay, waxaad ka helaysaa magaalooyinka waaweyn badankooda sida Boosaaso, Garoowe, Hargeysa, Jigjiga, Muqdisho, Wajaale, Boorame, Gibile iyo meelo kaloo badan. buugga maanta waxa uu yaalaa ku dhowaad 15 maktabadood oo deegaanada Soomaalida ku yaala. haddii aad buugga rabtid, magaalooyinka aan soo xusayna aadan joogin, magaalada kuugu dhow ee meesha ku qoran la xiriir. gaariga ama diyaaradda ugu horeysa lagu soo saarayaa. waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iidi doontid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.